سؤال محمد أديات بين السلام يا عيال كاير كقرقرها بدن ما شاء الله وحوي قبل إذا الشيء ويتورتي ها تورت محمد قبل إذا الشيء وحكسي ترى تاس وحوي رير كودي يعد كذا على ثمان لا حريري كدبنا حيوير هذين ويقول شوابين ورقبنا إذا واد فرطيار أنا وحن يعني أن كله اللي وحوي إن عيالكم ما دابا يقول قرنا عيالكم منا يقول قرنا أنيقة بعد بين عيالك يقول قرنين أبا إنا منطقة أنا يقول قرطه أبا يعني أبا أيضا هيسته تسنك هدي يعني لكن وتشجع مع كلا كل ماي أيضا هنا ساعات بتلوان توري منا وقال إنا يقول قرطه منا أقوله هنا منطقة أنا أيضا قاعدته مركا وحوي ونسيب تره هذا وحن تاجنا هي بوليسي هورتودي ما دام مني أفرتني ستة ساعة كبرنا أي مقنت هاي وأي كم مقنت هاي يقولنا تريد عيال كوان توري ومركي كواد ما هي ومركي ستحال وينسا وكذا قاعده ويعني الفاميلي قد حتى اللي أجي هنا وحن سبيعي وأنجو أنصدي إن بوليس كلا سعودية أرنتها ويصوت كت هاي بريك مالنا لا يقبسنا يا لبده يدو مسؤولية الرو أيان قادنا وحيك حيسة ويل هراء ولا شيء أيك حيسة أي كاسو أيكو أن دعوتي كان أنا دعي وحوي ما تقنا ينادير كي أيانا يقدر أيكو أن دعوتي إن هذا بقى إن وحوي ما تقنا نسيب درضو يعني أنا ما طلع بناه معها قبل وحوي نسيب درضو مركيان قيس كودا غير كودا الله وحيقول شوابين warniyo gabadha waad furtay aad war haddaan furay anigu waan reerkii la isku soo celiya ma wado aan mana u baahni aan laakiin muhiimadu waxa weeye ciyaalka ay dhashay ay haysato ay sanayn hadii ay tuuraso tii abooda ku qorto iyana micnihii gaala gacanta way gelinaya taas way iska indha saabeen run ahaantii de maanta xaalad halkaas ay maraysaa marka waxaan ka codsanayaa Soomaali weyn meel kasta joogtaan aynu هذا اللي سنة الفيديو كان في شركة رئيس تملك استاجوكتان وحاول يمتلك أنا ملك استنقلية فيسبوك يوتيوب يلعك استقلية وحين كعد صنع عن ما دام عن ذلك الشرمل كشوقه ما أقاني فاميلي منه الشرعي هيستمع أقاني عن فاميلي شرعي هيستو ضد وين وشرعي هيستهدي أذكرنا ثاني محمد عادل فريزابو هذا أذكرنا ثان وقصوا حراء هيلسوا حريرين سي أي حتى نقطة الله دعوة إن منه اللي يرهذا ورجال كذوك وقرتنا والقادنا يا سي أيجو أن أقوليتشيو تاس أيان الكعد صنايعان وأنا نسمع السؤال وين ملك استاجو ترى إنه بحاول أتقاعد ونسد عيال كثيرين يعني داود يا الواحد داوني سين أبو لبدي سعيالة قروح ضبطنا إلهي وحفظه social media soo dhigay bariyahan dambe Soomaalidu waxa ku soo badanaya oo ay Soomaaliduna aad u jeceshay inkastoo uu yahay dhibaato caalamka oo dhan ku soo kordhaya laakiin Soomaalidu waxay kaga duwan tahay dadkii kale laba shay oo aanay tacab u gelin bay jecel yihiin lacagta iyo caannimada labadaasina dee waqti bay kaaga baahan yihiin lacagta waa loo xoogsadaa ama de ilaahay baba si gaar ah fakhriga kaaga saaro dhulkaabad ka heshaaba caanimadana de media la galaa journalist la noqdaa feerka la bartaa meel baa la iska soo tuuraa laakiin ciyaalkaaga caan laguma noqdo waa dhibaato weyn oo bulshada ku soo kordhaysa waxaan doonayaa inaan idinku dhaafo sheeko gaaban oo nin iyo xididkii dhex martay nin iyo saaxiibadiiba wada sheekaystay tan ninkaasi nin nacas buu ahaa oo raggii berigii hore ay tuhunsanayeen inuu nacas ahaa kadibna waxay ku yiraahdeen hebelow markaad gurigaaga joogto hilib nooceeya ayay xaaskaaga ku siisaa iyagoo doonayay inay ogaadaan sida gurigiisa looga qiimeeyo iyo qofka uu yahay kadib dabeetana iyagoo u diyaar garoobay privacy-ga iyo noloshii gurigiisa taallay inuu u sheego ayuu saaxiibadii wuxuu ku yidhi shaqada gabadha leh oo ah shaqadu way noo kala soocantay idinkana xaq uma lihidin inaan idiin soo tabiyo waxa gurigayga yaalla iminkana intii la asturi jiray ayaa waxay noqotay inta weliba video laga duubo in bulshada la hor keeno khilaafku
uu dhacaa, noloshaanu ka mid yahay, laakiin xalka qayb ka qaado. Haddaad aragto inay xaaladdu kaa tan badato, cid kuugu dhow la hadal, la kulan. Duruufuhu way jiraan. Xanuunada Yurubta ku soo badanaya waxaa ka mid ah stresska waxaan la yidhaahdo ama depressionka, oo labada xanuunba maskaxda qaabka u shaqaynayso saameynba ku yeeshaan. Laakiin isku day inaad hesho dhakhtar kuu sheega waddada saxda ah, ama xagga diinta u carar oo quraan isa saar. Social mediadu maaha xalka stresska oo wax kala burburiya bulshada. Qof kastooba safiir baa tahay ama safiirad baa tahay.